gudoomiyaha shirka Hoodaale Sheekh Cabdiqaadir Xaaji Jaamac ayaa afayeenka shirkaasi mudane Maxamed Cabdi Ismaaciil Dictorka oo welineen xubno ka mid ah guddidaasi oo shir jiraayay maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ay waxay kaga hadleen caqabado ay sheegeen in ay soo wajaheen kuwaasi oo ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen xubno beesha oo ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo ganacsato ka soo jeeda beeshaasi waxay u soo jeediyeen bulshada Somaliland ee sugaysa waxaanay u soo jeediyeen bulshada reer Somaliland ee sugaysa qarsoomida shirkaasi in ay faraha ka qaadeen dhankooda waana kan afayeenka guddida Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil iyo gudoomiyaha guddidaasi oo faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya sida ay wax u dhaceen waxaana yiraahdeen saatan qaabinta shirweynaha beelweynta Sacad Muuse ee Hoodaale muddada dheer ku soo jirtay ee hawsha badan ka soo qabatay ayaa ugu dambeyntii markii carqaladihii faraha badnaa ee Italiya bilowgii lagu soo hayay ay shirkii imaka u dhacay inaanu ka qabsoomi karaynin dhinacii guddida qabanqaabada waxaanu halkan ka iclaaminaynaa oo aanu dadweynaha u sheegaynaa shirkii Hoodaale ee muddada dheer soo socday ee ay ahayd inuu bishan ay dhammaatay 17 in lagaga tashado hawl dheer baanu soo bilownay markii aanu bilownayba waxaan ugu timi xagga dawladda oo faragelini ay nagaga timi waxay noo soo adeegsatay salaadiinta markii ugu horeysay dabadeedna salaadiintu bayaano fara badan bay soo saareen oo annaga ay nagaga soo horjeedaan waxa ku xigtay in qolo kale oo guddi ah oo tidhi dhexdhexaad baanu nahay inay haddana yimaadeen iyagii markii ay soo galeenna wax weeyaan fidmo kale ay abuureen guddi kale oo anaga taayadan u dhigatay yidhaahdeen waanu soo magacawnay iyaguna guddidaasina waa guddi salaadiin